waa mahadsantihiin dhammaan dadka halkan ku jira. gaar ahaan waxaan kaloo u mahadcelinayaa AGN iyo dadka kale ee arrintan soo abaabulay. waxaan kaloo gaar ahaan ugu mahadcelinayaa mudane Ilyas oo arrinkan cawdan ka wada qayb qaadan doona haddii Ilaahay idmo. waxaan kaloo si gaar ugu mahadcelinayaa Mr. Maxamed Goobdoon iyo Mr. Yaxye oo barnaamijkan abaabulkiisii waqti badan geliyey. intaa ka soke hadalka marka hore kuma dheeraanaya maadaama ay furid tahay. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah dhamaanteeda in cawada halkan aan ka faa'iideysan doono wax ma aragtay wada dheer noo iftiimin doono. marka intaas ayaan leeyahay hadalkuma sii dheeraanay waana mahadsantii dhamaantiin soo dhawaada. markii aan ka hadlo Soomaaliya oo kale dadka waxa ay raadinayaan ugu muhiimsan waxa quick fix. يعني waxay aaminsan yihiin in Jamestones ka lacag laga helo qiimo weyn ay yihiin يعني value ay leeyihiin iyagoo aan wadadii saxda ah u marin waxa ay raadinayaan ugu muhiimsan waxa waaye quick fix. hadda intee lacag ka heshaa dhagax hadii maanta hal dhagax uu ku gadmo almost waxa haystaa 50k 100k wax unimaginable ah oo realistic ah ahayn ay ku wada dhagan yihiin. waxa keenayaan waxay tahay يعني إن لأوجه كلية ضد كثيرين قيمة وشيء وليه إن كثيرين وضد صحة آيو جودي العمر اللي عايو سيد موسى صار لايو وحيابات صنون مفيد. Soomaalida iyada markaan u maano arrimahan gemology-ga xaqiiqatan waxay jirta aqoon yari badan baa dadku jirta. waxa kale ugu muhiimsan dadku waxaysan kala garanayn cilmiga marka laga hadlayo waxaan inaad aqoon u leedahay oo aad garanayso inaad ka shaqayso way kala horeeyaan. cilmiga ka horeeya shaqada. waxaad ka shaqayn kartaa waxa kan marka aad cilmi iyo aqoon aad u leedahay. laakiin inoo cilmi u lahayn hadaad isku daydo wixii inaad waan ka shaqaynay aad isku daydo wax badan baa khaldamaya. dadkii marka waxa dad indha u noqday dad yani quraafaad iyo waxyaabo badan oo jirin waxyaabo run ah oo been badan lagu daray. waxyaabo sheegay qaarkood waa run kaso dhagaxda markii ku sheegayaan magacyadooda waa sax of course way jireen opal baa lagu sheegayaa ruby baa lagu sheegayaa diamond baa dhagaxyada magacyada lagu sheegayo idil waa sax. laakiin waxa meesha ka khaldan oo qof walba uu ku oranayaa diamond baa soo helay. haddii adduunyada marka waxa la soo helay si fudud lagu heli karay qaali maba noqdeen ba aqliga insaanka. wax kasta Ilaahay xikmad buu u sameeyay markuu abuurayay. tusaale ahaan qofka maanta doonaya in wax la eg $10 inaad hesho waa inaad bixisaa juhdi la eg $10. wixii nasiiba waa gaar wuxuu Ilaahay ku siiyay waa gaar. laakiin dadku iyagu qof baa ku iimaanaya ku oranaya diamond baan haystaa been buu ku daray wuxuu leeyahay lacag baa la ii gaaray waan ka diiday 2 milyan baa la ii gaaray waan ka diiday. marka waxyaabahaas oo mythka ah Afrika aad bay ugu badan yihiin gaar ahaan inaga ugu liidana. hada dalalka dariskana la ah oo kale Ethiopia meesha maqalle waxa laga soo saaray in muddo ah sapphire baa laga soo saaray. gobolka ormada ay degtay iyana waxa laga soo saaray emerald baa laga soo saaray in muddo ah. hadda Kenya oo kale dhagaxa sapphire ka leeyahay green garnet ka ay caan ku tahay ayaa aad looga soo saaraa color change garnets oo kale. waqooyiga Kenya oo kale waxa laga helaa iyana dhagax loo yaqaan sapphire ka noocyadiisa kala duwan. halka Tanzania bariga Afrika kamid waxa laga helaa rubiska laga helaa tanzanite oo ay iyadu magaceeda qaadatay magaceeda la siiyay laga helaa. Mozambique waxa laga helay rubiga dunida ugu fiican uguna qaalisan. barigii hore Burma ayaa ugu fiicnayd laakiin hadda waxa ka qaaday ka fiican meesha la yiraahdo waxa ka qaaday meesha la yiraahdo Mozambique. gobolka marka eegto DRC ama Democratic Republic of Congo oo kale marka eegto waxa laga soo saaray tourmaline aad u fiican aad u qurux badan diamond ayaa laga soo saaraa. marka Suudaan eegto sapphire iyo waxyaabo la mid ah laga soo saaraa iyana. marka gobolka markaad eegto aan ku noolnahay inaga waxa moodaa farsamada iyo cilmiga inaga inaan aad ugu liidano. iyaga tusaale ahaan dadka aan sheegayno Jamestownada xilli hore la bilaabay xilli qarni ku dhow hal qarni ku dhow ilaa 100 sano ku dhow ay soo wadeen hawshan. Ingiriiska baa bilaabay meelaha qaar oo dadka ku tababaray. so generationada hadda waxay marayaan kuwa qaar generationkii afraad bay marayaan ama shanaad bay marayaan. jiilkii shanaad oo waxaan ka shaqeynaya inagu jiilal waxaan ka shaqeynaya inaga hadda ugu horeyna oo waxaan naga doonayaa markii aan bulshadii ka dhaadhicino waxyaabaha midka ama kutirikuteenta inaan ka saarno
ودتكو ما aragtay xirfadu naftiisa Jamestown-ku aad bay u balaa gemology-gu aad buu u balaaran yahay dadka iyagu hadda ma jiraan dad kad garanaya ma jiraan meel laga wax lagu qoraa ma jirto as jewelry ahaan uma isticmaalna xitaa kuwa raqiiska sida quartz-yada oo kale marka waxyaabo badan isbedel fursado badan baa meesha ka furan caqabado badanna way ka furan yihiin xaqiiqdii taqaana waxyaabaha mythka ah iyo waxyaabaha factiga ah sida ay noo kala bayaaniyeen aad aniga lafteeda waxyaabo badan ayaan caawa ka faa'iiday mar kaleeto iyo mar saddexaad waxaan leeyahay mahadsanidin barnaamijka noocan kaleeto ama ahan markii ugu dambeysay kuwa aynkan kale ayaan qaban doonaa insha Allah taala AGM Foundation waxay u taagan tahay mar kasta in ay caawiso dhalinyarada Soomaaliyeed ha ahaadeen gabdho iyo wiilal ha joogaan dalka ama ha joogaan dibadda waxyaabaha basic-ga ah ee geology-ga ah la xiriira in aan ka caawino mar kasta iyo meel kasta oo aanu joogno waxaan u helanahay mar kastaba in aan xog dhammaystiran oo xaqiiqo ah idin soo gudbino adinkana waad mahadsantihiin qaybgalkiina barnaamijka aad nagala soo qayb gasheen waxaan rabaa in aan barnaamijka soo gabagabeeyo maadaama waqtigu uu nukulaalayo waqtigiina uu dhamaaday injineerada barnaamijka nagala qayb galna waa mahadsan yihiin aniguna waa mahadsanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu